magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa xalay kulan ku yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo maalmahan halkaasi ku sugan iyo hoggaanka ugu sareeya Ahlus Sunnah wal Jamaaca. kulanka oo ka dhacay xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa looga hadlay sidii ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlus Sunnah loogu celin lahaa xeryahooda isla markaana laga dhex saaro gudaha magaalada kuwaas oo soo galay kadib xiisad siyaasadeed oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb taasoo u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlus Sunnah. sidoo kale kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen arrimaha la xiriira guddiga doorashada Galmudug maadaama wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ay kala magacaabeen laba guddi doorasho iyo dhismo Galmudug. warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlus Sunnah la geeyo xeryahooda isla markaana amniga magaalada kaliya lagu wareejiyo ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. dhowr jeer oo hore ayaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlus Sunnah waxa ay yeesheen kulamo xasaasi ah kuwaas oo badankood aan waxba ka soo bixin waxaana kulankii ugu dambeeyay oo ay dhawaan yeesheen uusan ka soo bixin wax natiijo ah taas oo keentay in Sheekh Shaakir uu magacaabo guddi doorasho.